Soodhaweyntii Boqor Abdirashiid Boqor Omar Maxamed Abdirashiid Ismaaciil Ali iyo Cali Saleeman aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad bayna nagala soo qayb gasheen dalka waxa mideeyay dadkana israacay naga dhigay guliyo diir iyo daris walaa Soodhaweyntii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما يكون ليس وحن هاي سلام يبقى قاعدين سوجدنا يا جماعة فدياشة كلهم فدية الصوماليات ومو هاي ميل دلك إنك فوق ستيت كلوبتين مو هاي ما أو سوي ما تسوي بدن مو هاي ما دقمت الصوماليات وحن مو هاي عاديات هم باليوم جدنيا وعبدالشيد وعمر وكان مو هاي قصة رئيسين مانتا مو هاي بدن Soodhaweyntii أنت Soodhaweyntii بدن مو هاي هذين يبقى علينا وضع. وضعنا كنا سادوكتين مو هاي تاريخ هان معمول دقماتكو حكم لها ولا كمدي هاي يعني ما عادي عاد لو تحكي ليه وولي بقى يعني ما مو هاي ملقة وجب لي ماذا يقلوا عندي وحن عادي عاد مو هاي مطلبات يمسد حادبة وبقادين يا بقر عبدالشيد إن إلهي كان يجوا أستانتيسا من مو هاي تابقلا إنه قتقول ما كانوا يبني هالكيماني وحنا هاي بقر كم حاد سيكتا بحاد هديت بقى دخل السياب بحاد سيسا وحنا أوجه هاي إن اسمه وحقوين أو كاشدان أي تاجد دي تشلاك بس كيبان سقي ماذا أتوقع حكى سالة أما هالشيء أما ضوضة أما جنازة أما أصل كذنبه وكتاب القرآن مثلا كتاب القرآن أيام مو هاي أوكي أنا عندك سالة ولا مو هاي كاس أيام مو هاي إلهي كبرينا إنه كارد يقول أستان هذا مدة كل مو هاي سوكي أنت نودنا مو هاي سيء كبلا بتاعي مو هاي أوسلانك وحويان مو هاي نودنا أي سلقوا إن مو هاي أنت كامسي. dalka waxa mideeyay dadkana israacay naga dhigay guliyo diir iyo daris walaa Soodhaweyntii dalka waxa mideeyay dadkana israacay naga dhigay guliyo tahay horta marka hore waxaan u mahadcelinaynaa intii ka soo qayb gashay xafladdan oo aan ku soo dhaweynayno Boqor Abdirashiid Boqor Omar Maxamed oo u doorteen beesha Ismaaciil Ali boqortooyo marka hore intii ka soo qayb gashay waa aad baan u mahadcelinayaa waxaan kaloo u sheegayaa Boqor Abdirashiid wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo laba nin aad u yar waa nin jaamacad ka soo baxay waa nin haddana aabbahi ahaa isin oo la sheekaysan jiray oo la fariisan jiray marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay u fududeeyo oo jiraan ay u noqoto waxaan marka u horreysaa aan Abdirashiid kula dardaarmaya Abdirashiidow sidaan odayaasha kala soo wareegnay waxaan maqli jirnay ninka haddii isim loo magacaabo saddex waxyaalood ha iska ilaaliyo saddexdaa waxyaalood baa ugu khatarsan waxaa weeye guddoon jilicsan inuu guddoonkiisu yahay guddoon adag
hadduu guddoon jilicsan yahay xukunkiisu waa aad buu ugu xumaanaya gar eexo inuu garta labada qof u kala eexdo ama dadka uu u haynayo waxaa saddex ah gacan laaban ninku isim hadduu yahay waa inay gacantu fidsan tahay markii ninu yimaado markii tolu yimaado markii dulu yimaado waa inuu wax bixin karaa uusan bakayl ahayn gacantaasina waxaa laga rabaa tolkii doortay inay asaga horta marka hore xoolay geliyaan investment ay ku sameeyaan waayo asaga wax gacan keenaya waa la fariisiyay waxa meel noo fariiso boqor baa noo tahay ugaas baa noo tahay sultaan baa noo tahay marka waa in asaga maalgelin la geliyaa maalgelintaas waa inuu ku bakay waxaa kaloo jira ummadda Soomaaliyeed boqor Abdirashiid waa inay ku sameeyaan marka isin waxaa laga rabaa sidaa inuu yacni uusan dhihin ma aniga qolaa ay dooratayo qolaasaan guri ugu jiraya waa inuu Soomaaliya oo dhan ugu kala eexo uu isku dayo inuu meel walba tago uu raadiyo nabad ka raadiyo waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkiisa uu kula dardaarmayna inaad boqotid boqorkaas meel walba gala oo meel walba kala hadla dalka waxaa mideeyey dadkagana israacsay naga dhigay uliyo diir iyo daris walaala duqaa soo dhaweeya dalka waxaa mideeyey dadkagana israacsay naga dhigay uliyo mar labaad waxaan balyaynayaa boqorka oo aanu saaxiib nahay xilkaas la saaray ee culus uu soo qaaday baan ugu hambalyaynayaa marna waan u ducaynayaa waxaan leeyahay waa xil culus allaha kula garab galo dalka waxaa mideeyey dadkagana israacsay naga dhigay uliyo diir iyo daris walaala duqaa soo dhaweeya dalka waxaa mideeyey dadkagana israacsay naga dhigay uliyo diir iyo daris walaala qiimaha lahayd raggii ugu horreeyay dhameeyay Dr. Khaliif ayaa intii hadalka ugu qiimaha badnayd sheegay anigu waxaan kaliya ku darayaa boqor Abdirashiid boqor Omar inaad dhammaanteen inagoo reer Uppsala ah oo ka mid ah dadka Uppsala waxaan idhaahdaa inada degan markii horena reer Uppsala ahaa inaad nala soo dhaweysaan oo ku soo biiray isimada maanta Puntland gaar ahaan guud ahaanna isimada Soomaaliya inaad nala soo dhaweysaan oo aynu si martiqaadkan yimi hadda maanta inaan ku soo dhaweyno waxaan leenahay Abdirashiid magaaladaadii markii hore u deganayd marka ku soo dhawow marka hore nagula soo dhawow waxaan marka ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan dalka waxaa mideeyey dadkagana israacsay naga dhigay uliyo diir iyo daris walaala duqaa soo dhaweeya dalka waxaa mideeyey dadkagana israacsay naga dhigay uliyo diir بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا البواني نفرنا وهلك في وضياشي وغاشي دوريسي ماتري ان شاء الله waxaan ku dhigno sida uu noo sheegay doctorku in aanu midnimada waxbarashada caafimaadka amniga
ummaddu ay ammaan hesho aan ka shaqayno dhaqankii marka sida hadda odayaasha sheegeen ma dhaqanku waxa weeye waa Soomaali oo dhan ay wada leedahay marka aniguna inaan ka shaqayno wixii Soomaali oo dhan danteeda إن شاء الله كشغل دونا وحاد يا رغم هذا علمي سيدا ونحسن رسوا جيبتين سودوين تبقات كان وحان كلاتا رغم هذا علمي أنا يردي كسر شقيسي مناسبة عن سودوين تا الجو حميدي بتجانا يسرعي ما قد يقول يوتير يا دارس ولا Soodhaweyntii dalka waxa mideeyay dadkana israacay naga dhigay uliyo dulla iyo hadeer وحدان الصومالي وتدا دويتو وكورا بكي الله يومنا الدنيا